sida ay baahisay warbaahinta dalkaasi Kenya laga leeyahay ee lagu magacaabo Citizen Digital ayaa waxaa lagu sheegay in 5,000 oo maleeshiyada oo Soomaaliya ay leedahay oo ciidan ah uu Sacuudigu ku tababarayo gobolkaasi Galguduud. Warbixintani waxaa lagu sheegay sida halkani kaaga muuqata inay ciidamo iyagu calooshooda shaqaystayaal oo ka kala socda dalalka Romania, Ukraine, South Africa iyo sidoo kale Colombia ay halkaas ku tababari doonaan ciidamadaasi Sacuudigu dhaqaalahooda uu ku bixin doono muddo 9 bilood ah oo ka kooban tiro ahaan 5,700 sida warbixintani lagu sheegay. Sidoo kale halkan waxa isku dul istaagi doona dhanka kale Mareykanka oo isagu maanta ka soo saaray warbixin isla ciidanka Soomaaliya oo calanka iyagu ku tuntay Mareykanka sida ay Soomaaliya ay baahisana ay shakhsiyaadkaasi ay u xidhay calanka Mareykanka dartiye in lagu tunto. Sidoo kale halkan waxa isku dul istaagi doona gobolka Awdal oo Qayladhaani ay ka soo yeedhay markii gudoomiyaha golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland uu dib ugu noqday shakhsi reer shaqo-saxaaga gaar ahaan walibana isla gudoomiyihii hore ka degay ay isku beel ay yihiin. waxaan ka codsanaa muuqaalkan fadlan like sato siina share gareyso meel fog aad gaarsiiso sidoo kale fikirkaaga aad commenti nagula wadaagto haddii halkan ku cusubtahay wax ku socona wadadii 100 kun ku tagi lahayn ee aad ku soo biirto mahadsanid. waayahay aan ku bilaabay sida warbixintani maanta la baahiyay Sacuudiga waxa uu ka shaqeynayaa 100% sidii halkaasi ugu abuuri lahaa ciidamo isaga ka amar qaata oo iyagu afkaar diimeed oo xaq jigirnimo ah xambaarsan sida ay halkaasi ay ula dagaalami lahaayeen cid kasta oo maanta loo arko in ay Sacuudiga ay ku yihiin halis ku soo socota ay yihiin sida inuu maanta Suudaan uu u diraayo isla maleeshiyaadka kuwa kamid ah oo u adeegsan doono dagaalada halkaasi ka socda oo horena 100% u hubeeyay garabka militariga Suudaan ka dagaalama ee la dagaalama isla kooxaha iyagu ka soo horjeeda. haddaba ciidamadaasi 5,000 iyo 700 ka koobani 100% waxa loo adeegsan doonaa siyaasado kale ayaa loo adeegsan doonaa ma ahan kaliya in loo adeegsan doono isla gudaha Soomaaliya waana sababta looga dhigay tababarayaashooda tababaraya ciidamadaasi inay ka kala socdaan isla dalalka Romania, Ukraine, South Africa iyo sidoo kale Colombia oo iyagu ah ciidamadaasi ciidamo calooshooda u shaqaystayaal dhaqaalahoodana uu bixiyay Sacuudiga 9 biloodna ciidankaasi lagu hubeynayo halkaasina tababar ay ku qaadan doonaan waxa calooshooda u shaqaystayaal ay tababareen waxay noqonayaan calooshooda u shaqaystayaal ma ahan kuwa kamid noqonaya ciidan Soomaaliya ay leedahay 100% kulina waxay noqon doonaan dagaalo ay u adeegsadaan wadamada shisheeye Sacuudigu ugu horeeyo iyo sidoo kale Turkigu. yahay dhanka kale maanta warbixin ay ka soo saartay isla falkii ay ku kaceen ciidamada Soomaaliya oo calanka Mareykanka ku istaagaya oo iyagu qarna ay gubayaan sida muuqaaladani kaga muuqda oo maalmihii amba 2 cisho la soo dhaafay iyagu baraha bulshada aad u haystay oo gaaray tirada daawashada dadkaasi daawatay muuqaalkaasi kuwa bilyan kor u dhaafaya maadaama ay soo qaateen warbaahinta galbeedka afkooda iyagu ku hadla oo ugu yaraan kuwa ugu yara soo qaatay ay haystaan tiro ahaan 5 milyan oo followers sababtaasina ay ku dhacday in adduunweynaha dhani laga daawado tani 100% sumcad xumo kaliya tuumay soo jeedin kuwa ciidamada Soomaaliyaanka balse cid kasta oo shakhsi kasta Soomaaliya ay u soo jeeday sharaf darro iyo sumcad xumo iyadoo awalba Soomaalida waxa la yiraahdo dunidu ay bahalnimo ay ka aamisneed iyo dad 100% aan iyagu ahayn dad dawladnimo u qalma balse adduunyada iyo shacabka adduunka ku noolba waxa uu waagu ku bariyay maalinkii Israa'iil ay ictiraaftay Somaliland maalintaasi wixii ka horeeyay media waxa aad reer galbeedku ay u galiyeen magaca ah Soomaaliyaan oo iyaga loo isticmaalo isla cid kasta oo ka soo jeeda isla Soomaaliya balse aan ahayn Soomaalida oo dhan waana sababta uu Trump iyo sidoo kale baahinta afka dhaadheer ee galbeedkuba ay mar walba qoraan magaca Soomaaliyaan halka ay awlare ka qori jireen Soomaali balse maanta waxa hirgashay la isticmaalo magaca Soomaaliyaan oo iyaga loo yaqaano kuwa halka Soomaaliya ka soo horjeeda maadaama Soomaalidu ay shantaay Djibouti iyo Somaliland iyo NFD iyo DDSI ay iyagu ay awal horena kala haayeen maantana kala yihiin Djiboutina ay dal gaaratay Somaliland dal gaaratay Soomaaliland dal gaaratay labada kalena ay Ethiopia iyo sidoo kale Kenya ay maanta wax la qaybsadaan dawladnimadoodu ay halkaasi ay ka jirto dawladnimada ka shaqeysa halka dadka Soomaalida ku nool NFD iyo DDSI sidoo ka warayno 100% waa Ethiopian
iyo sidoo kale Soomaali Kenyan amba Soomaali Ethiopian kulba sida aad u taqaano ka dhalinyaradaasi iyagu ciidanka waxa kaliya ku kalifeen calankaasi ku istaageen wax kale ma sameyn karaan maadaama quudka uu siin jiray quudkina uu ka goostay saaslaajigeed xanaaq iyo busaarada ay ka qaadeen darteed ayay magac xumada iyo sumcad xumada inta leeg ay u soo jiideen isla kuwii ay ku hoos noolaayeen boqolkiiba boqol maantana adduunku Somaliland iyo Soomaaliya waxa la ilaado waa kala bartay oo maalintii Somaliland Israa'iil ay tiraftay libaax ay ku dhufatay Israa'iil ayaa adduunku uu ogsoonaaday dad halkan ku nool Soomaali sharaf leh inay jiraan oo gobolka Geeska Afrika ku nool oo dhulkooduna istiraatiiji kuwaas oo ah Somaliland dariska taasina waa wax Ilaahay loogu mahad celiyo waana mid mudan inay ummadda reer Somaliland mar walba ay ilaashato si sumcadda reer Somaliland marnaba aanay u lumin waayahay ugu dambeyn maanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu riixaya oo ku qasbaya amba se codsi uu rabaa inuu u gudbiyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland kaasi oo uu rabo booskiisa inuu ku bedelo isla shakhsi reer awdal ah haddii uu iscasili waayay iscasilaadaasi iyo wada hadalladaasi uu maanta madaxweynaha iyo xukuumaddu ay la wado isla gudoomiyaha maxkamadda sare uu isagu ka soo horjeesto uu aqbali waayo waxa madaxweynaha u diyaarsan in uu golaha wakiilada iyo golaha guurtidaba u gudbiyo sidii halkaasi xilka looga xayuubin lahaa xilka ka xayuubin loogu sameyn lahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Somaliland kaasi oo booskiisa la rabo in lagu bedelo shakhsi reer awdal ah haddii ay dhacdo iyo haddii dhici weydaba waqtiga iyo waayaha ayaa inoo sheegi doona su'aashu waxa ay tahay maanta reer awdal ma istaahilaan maxkamadda sare loo dhiibo haddii maanta la dayacay oo la sii waayay isla golihii guurtida oo isla shakhsigii isagu haystay isla nin ay isku reerin yihiin uu meeshii imid maadaama oo reer shaqsiyaag maanta ay haystaan kursiyada ugu badan ee iyagu ugu nacfiga leh eeda waa midda ay doodu ay tahay reer awdal oo leh annagu waxaanu ka nahay meesha mashxaradayaal mise ubax lagu qurxinayo balse isaaqamu dhigay iyaga ayaa iska dhigay anigu ayaan qabaa shakhsi ka ahaan shalay toole markii xusbiyadu tirtamayeen inay boqolkiiba boqol amba ururadu ay tirtamayeen inay la soo baxaan xusbi ayaa boqolkiiba boqol ka mudnayd oo ka sharaf badnayd intay maanta ay ka ooyidahayeen waxay wax kula qaybsadaan boqolkiiba boqol oo iyagu inay dadka kale afduubtaan ayaan anigu boqolkiiba boqol rajayn lahayn iyaga kolbe la soo kala qaybin lahaa ee halkaasi ururo kale lagu diri lahaa ururkoodina aakhiro loo diri lahaa sida hore u dhacday maanta waxa leeyahay reer awdalow maalinta aad gudnimada aad sheeganaysaan iyo xillaanta aad ka cadanaysaan aad ka badbaadaysaan waxa weeye maalinka aad xilihiina fuushaan ee aad la soo baxdaan xisbi aad golaha wax kaga goosataan iyo siyaasadda Somaliland aad waxee kaga goosataan oo idinku farta doonto aad ka dhex qortaan maalintaas ayaad waxaad raadinaysaan aad helaysaan inta ka horeysa noqonaysa waa shimbirayahow heesa anigu runta igu yimaada reer awdalow run baan idin sheegaya horena maalintii ay tartamayeen ururadu intaan baan idinku wiri maanta intii baan idinku celinaya nin raashada saxaaqo idinka talaasulaya kursi ma jiro ku seexda kuna soo toosa sidaad doonayso ayuu kanina u doonaya kan kursiga waxaad kursiga ku dhaxaragtay ayuu kanina isaguna ku dhaxarkay marka gobonimo sameeyo sida noo sameeya siyaasadda kama shaqeyso siyaasadda dhan baa gudnimaada raashada saxaaqo dhanna beerka dhulka ku wada hayaare horta waxa la raashada saxaaq oo kaliyaata inay meesha manfaacsanay moodinay $3 meeshan koote iskaga haysta oo habar jeceliya habarawal iyo garxajiskaasi baa meeshan siyaasadda Somaliland ba iyaga noocay doonaan ka yeela isaaqii kale hartigii kale samaroonkaasi ciisaasi farmeesho waxa la iskaga yahay waa wax la wada qabo oo ubaxaas lagu qurxinayo Somaliland baa la wada yahay intaad waxaas kale raashada saxaaqa iyo ciisaay hartigaad soo roostay samaroonay xisbi heer caalamiya sameeyo dimuqraadiyadeed reer walba uu ka soo muuqdo inta idinku aad la lahaydeen annaga waxana la siiyo idinka la idin soo doontaa la yiraahdo waxna siiya oo xiliyaha fuuli waleedin Ilaahay waa idinka dhigay rage oo gobolkiina 200 kun kor u dhaafayaba ku noole oo cid ay doonaan soo saari kare assalaamu calaykum